dhegeystayaasheeda qiimaha badan meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada Meeraysana Channel sida qorshaheenu ahaa aynu maalmahanba kaga hadlaynay doorashooyinka dhexe ee midtermka Mareykanka aynu ku balansanayn maanta inaynu ka hadli doono aqalka loo yaqaano House-ka ama House Representatives-ka ayaynu maanta intii aynu ka gaarsiin karro aynu waxoogaa yara falanqayn doonaa intaynaan u gudbin House-ka waxaan jecelahay inaan kulligiin akhyaarteedana dhegaysanaysaa inaa horta videogan ama clipkan horta share garaysaan like garaysaan also subscribe button-kana taabta sii faafiya waa channel cusub marka waxaan jecelahay in sii share garaysaan dhowr kelmadood baa iga maqli doontaan inta badan anigoo isticmaalaya intaan ama horeba iga maqasheen intaan programkan wadno kelmadda House-ka aynu ka hadlayno Congress-ka Mareykanku waxa weeyaan waa laba waxa loo yaqaanaa Congress-ka siisa waa Senate-ka iyo House Representatives oo Soomaalidu soo yaqaanaan aqalka hoose iyo aqalka sare ayaynu kala naqaanaa labadaba marka la isku daro Congress baa la yiraahdaa dadka qaarkood waxay kaliyaatay Congress u yaqaanaan aqalka hoose oo kaliyaata laakiin sida caadiga ah labaduba waa Congress so House haddaad maqasho waxa loo soo gaabiyay halka laga oran lahaa House Representatives wuxuu baa la iska yiraahdaa House-ka marka waa aqalka hoose ee Mareykanka saa ula socda kelmadaha kale ee aan maqli doontaa waxaa ka mid ah incumbent kelmadda incumbent haddaan isticmaalo macnaheedu waxa weeye waa qofka kursiga haya markaa ku fadhiya ee in dib loo soo doorto u tartamaya haddaynu kelmadaha kale maanta isticmaali doona inta badan waxaa ka mid ah toss up oo ah kuraasta aqalka hoose ama House-ka ee lagu tartamayo ee labada xisbiba ay wingarayn karaan dhinacu doona u dhici kara ee labaduba ku xisaabtamaya inay wingareeyaan hadday maqashaan safe ama likely macnaheedu waxa weeyaan xisbigaas ayaa almost la hubaa inuu ku soo baxayo kursigaas kelmadda kale maqli doonta waxa weeye lean waxa weeye wuxuu u badan yahay in xisbi uu ku soo baxo kursigaas haddaan tusaale ahaan idhaahdo 5 lean seats for Republicans macnaheedu waxa weeyaan shantaas kursi Republicanka ayaa loo badinaya inay helaan marka waxaan doonayaa inaan gudagallo saan horeba uga hadalay House-ku waxa weeyaan waa 435 xubnood labadii sane kasta baan idhaahdo aqalka hoose House-ku iyagu 435 xubnoodba doorashaday ku jiraan dib baa loo soo wada doortaa hadday wax bannaanaadaanna loo buuxiyaa marka 435 xubnood ayaa lagu tartamayaa marka haddii aan inta badanna doorashooyinka Mareykanku waxaa looga bartay oo lagu yaqaanaa in horta ay kuraasta intooda badan aan lagu tartamin oo la hubo cidda districtga ama regionka u badan ee doorashada ku soo baxaysa tusaale ahaan haddaan soo qaato 538 waa website badana falanqeeya arrimaha doorashooyinka saadaal fiicanna inta badan sida looga bartay ka bixiya so 538 waxay leeyihiin 30% ayuu jaaniska dimuqraadigu yahay ina ay majority-ga dib ugu soo noqdaan hadda dimuqraadiga ayaa majority-a Republicankuna ilaa 70% jaaniskoodu weeye sidaasay tahay haddana marka nambarada la eego waxaa la moodaa in 50-50 ay iskaga dhowdahay so tusaale ahaan kuraasta safe-ka u ah ama likely ay dimuqraadiga u ah ee la hubo inay ku soo baxayaan waa 168 according markaynu eegno 538-ka kuraasta dhinacooda u janjeedha ee loo badinaya in iyaga ku soo baxaana waxay u badanta waxa weeye 31 kursi Republicanku waa waxa weeye 195 safe ah iyo 14 kursi marka la isku daro Republicanka inta safe-ka ah iyo inta dhinacooda u badan waxa weeyaan waa 109 xubnood dimuqraadigana marka la isku daro waxa weeyaan waa 99 marka la isku daro so taa macnaheedu waxa weeye aad bay isugu dhow yihiin waxaa jira 12 kursi oo loo yaqaan toss up
12 kursi ee labada xisbiyo badin karaan. Tusaale ahaan marka la isku daro dimuqraadiga inta safe u ah, inta xaggooda u badan iyo inta la filayo in ay cod aqlabiyad aad u yar ku badin doonaan waa 208 marka intaasoo dhan la isku daro. Republican-kan waa 215. So majority-ga qolada helaysa waa inay hesho 218 ama 218 kursi. Marka waad garan kartaa Republican-ka markaanu eegno 538 saadaashooda in 3 kursi oo kaliya marka ay u baahan yihiin ku dagaalamaan, halka dimuqraadiga ay u baahan yihiin 10 kursi in ay ku dagaalamaan. 12 kursi 538 waxay soo qaadanayaan dhowr kursi oo filaya anigu shakhsiyan inaanay aan jeclaan lahaa inay ku daraan xagga dimuqraadiga. Tusaale ahaan Alaska oo kale, Alaska waxa weeye waa kursiga kaliya uu leeyahay statekaasi. Special election beri dhowto la qabtay, gabadha dimuqraadiga ayaa Sarah Palin ka badisay, iyadaa ku soo baxday, haddana iyadaa kursiga dib ugu tartamaysa. I believe inay dimuqraadiga kursiga badin karaan. Dhowr kursi oo kale oo xagga lean Republican la mariyay sida Colorado oo kale, I believe inuu yahay District 8 Colorado. I believe inay dimuqraadigu badin karaan kaana. So calaa kulli xaal marka la isku soo wada duubo la isku wada daro waxaan filayaa badanaa house-ka doorashadiisa saynu uga baranay ama ka taariikhdii hore ee doorashooyinkii hore waxaa badanaa soo baxaa kuraas lama filaana oo la moodaya inay qola badinayso ama dhinac u badan oo marka dambe qolada kala badiso. Tusaale ahaan Texas oo kale, Texas governor race-ku aad baa ay isugu dhow yihiin, Beto O'Rourke iyo Greg Abbott. Lacag badan oo lagu bixiyay xagga governorka. So Beto dad aad u badan ayaa is-register gareeyay sanadkan si ay u vote gareeyaan first time markii ugu horeysay ee codaynayaan ah oo Beto dartii ah. Marka I believe Texas oo kale inay dhowr kursi lama filaani ka soo bixi doonaan 10 out-ka marka la eego Beto dad badan u soo bixi doonaan isagoo u codayn doonaan inay dabeetana dhiida xagga dimuqraadiga ay kuraas lama filaani ka soo bixi doonaan. California oo kale waa state-ka ugu kuraasta badan, waxaan filaya inay 53 kursi yihiin. 53 kursi 6 kursi oo kaliya taa Republican-ka safe u ah California, ilaa labana xaggooda u yara badan yihiin. Inta kale dimuqraadiga u badan 2 kursi ama 3 kursi baa California oo dhan toss up ama labada xisbiba ay badin karaan. Tusaale ahaan Mike Garcia waa District 27 California, tusaalaan u soo qaadanaynaa. Waa incumbent, isaga ayaa hadda kursigaas Mike Garcia ayaa kursigaas hadda haya. Laakiin poliska markaynu eegno la isku celceliyay polasha, Mike Garcia is leading to Christy Smith only wax ka yar 1 point wax ka yar. So taa macnaheedu waxa weeye muxuu ahaa arrimahan abortionka iyo dumar badan oo is-register gareeyay waxyaabahaas oo dhan. Kursigaas oo kale waa kursiga si easy iyo dimuqraadiga u flip garayn karaan. Aad bay isugu dhawaan doontaa laakiin they can flip kursigaas. Kursiga kale ee ku xiga isla California ah incumbent-ku waa dimuqraadi, waxaan jeedaa waa Republican kaasna nin la yidhaahdo Rudy Sales oo dimuqraadi ayaa loo nominate gareeyay u tartamaya. Isaga laftiisa ninka dimuqraadigaaba less than 1 point hogaaminaya. So kaas oo kale they can flip. David Valado waxaa la yidhahdaa waa kuwa one of the most vulnerable ama ugu iisisan in la flip gareeyo. Overall marka la isku wada daro doorashadani horta waxay noqon doontaa midtermyadii hore ee aynu soo dhaafnay mid ka duwan. Aad baa la isugu dhawaan doonaa. Dadku markii hore waxay filayeen inay Republicanku ay doorkan kuraas badan sidii 2010kii ama 2014kii oo kale 40 kursi 14kii 40 kursi bay oo dheeraada ayay wengareeyeen. 2010kiina 63 tii oo kale ma dhacayso.
haddii ay republicanku ay majority-ga house-ka ay qabsadaan waxay noqonaysaa 4 5 6 ugu badnaan kursi inay majority noqdaan oo like tusaale ahaan 234 kursi inay helaan hadday dimuqraadigu dib ula soo noqdaan oo majority-ga ay keep gareeyaanna iyaga laftooda 2-3 kursi baa dheeraanaya majority-ga ilaa 220 222 ugu badnaan taa macnaheedu waxa weeye xisbigii house-ka qabtaba aad bay isugu dhowaanayaan labada xisbi xagga house-ka sababta sanadkan ay doorashadan uga duwantay doorashooyinkii hore ee traditionkii ama sidii ay ahaan jirtay marka xisbiga talada haya ee madaxweynaha ah xisbiga kale inuu midtermka electionka uu ku guulaysto waxaa ka mida oo weliba sanadkan inflationka iyo gaasta kor u kacda iyo waxyaabahaas ay republicanka ay easy u ahaan layd inay kuraas badan helaan waxaa dabraya joojinaya kow arrintii supreme courtku ay gaadhay dab decision ay yidhaahdaan oo ah inay laaleen wixii la odhan jiray Roe versus Wade ee ahaa dumarku abortionka in limit isaga oo jira haddana waxyaabaha qaarkood hadday timaado kubsi oo kale hadday gabadhu xanuunsato oo kale muxuu ahaa gabadhu dee nafteeda u baqato waxyaabaha inay ilmaha iska soo ridi karaan tii bay supreme courtku laaleen stateadii ku celiyeen ay yidhahdeen stateadu waa ina ay iyagu go-aankaa qaataan oo powerka stateada lagu celiyey stateadiina midba meel buu ku dhuftay arrintaa dumarku aad bay uga xanaaqeen uga godoodeen marka taasi republicanka waxay ku noqotay wejigabax iyagu islahaayeen markii hore way idin caawinaysaa laakiin dimuqraadiga taasi aad u caawinaysaa dumar aad u badan baa sanadkan isregister gareeyey oo u codaynaya dimuqraadiga ta kale Donald Trump dimuqraadigu waxa ay ugu jecel yihiin maanta inay ka hadlaan waa abortionkii oo republican ku tilmaamay inay yihiin extremist iyo Donald Trump oo ay ku campaign gareynayaan oo ay ka dhigayaan doorashadan doorasho badbaadinaysa dimuqraadiyadda waddanka oo maaragtay sidii Donald Trump 2020gii uu doorashadii Joe Biden uga soo horjeestay oo kale inay ku campaign gareeyaan inuu Donald Trump khatar ku yahay dimuqraadiyadda iyo hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda Mareykanka wax kastoo dadka indhahooda kaga duwi karaan inflationka ama gaastan kor u kacsan dimuqraadigu isku dayayaan inay doorashadan ay xagga republicanka ay difaac geliyaan halka republicanku weerar ka ahaan laayeen soo sababta markaa keentay in doorkan ay aad isugu dhowaadaan laga yaabaa aanay surprise ahayn inay dimuqraadigu keep gareeyaan labada aqalba waa taas weeyaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin weyga soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ka hadallo governorada governorsku waxa weeye waa madaxa stateka ama madaxweynaha stateka oo iyaga laftooda tartan aad u xoogani ka dhexeeyo iyo muxuu ahaa saadaasha oo hadhow saadaalin doonaa aniga shakhsiyan saan filaya inay doorashadu dhici doonto weyga soo socda inay saadaalin doonaa stay tuned nala socda aad iyo aad baa u mahadsantihiin sii sheer gareeya aad baan idin salaamaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu